سبحان الله والحمد لله سبحان الله لله به تعلو الدعوات وتحل على الناس البركات. waxaan u sheegaa war macallin weyn waa kowda uuna xanuunsan yahay aan ku dhahaa go'os ku dad agteeda soo seexay laakiin luqtaada ii soo dhaweeyu dhahay meel aan kaa taaban karo waxaan samaynaysaa waxaan samaynaa marka la gefo adaan ku taabanaa la dheh bas adig gacanta la taab saan waxa weeye dadkan cashar uga dhigno quraanka la wada marka aayad bal gefay oo taabana la ilaaha illa allah ulayya la saaxiibkiisa u baaqay dadkii waa argagaxay marka way cabsadeen waxa ninkaan soo xanuunsanaasan aayad waxa way u dareemayay anakoo fayow hadduu ficnaan laha ka wano ceeban laha ninka xanuunku ku fiicay hadhow nuuxiisa la siiyo maata khayr waxaan qisa igu darneed nin ahlu quraan ka mid waxa la soo wariyay inuu asoo iska lugeynaya baadiyaha duurka socdo oo indhaha uu beelay waqti ramadaan lagu jiro markaasuu meel hood banaanka qofna ma hayo iska fadhiistay waxaa la sheegay marka allahu aclam an sixatiha laakiin qisa iga cajibisay oo qur-aankana qariib ku ahaan waa suurat albaqara bilaabay wuu dhameeyey inta afurka la gaaray afurka markuu soo dhawaaday markaasuu dhahay suurat albaqara maanta afurka adaan kaaga fadhiya adaan kaa rabaa inaan kugu afuro afur ii keen adaan marti ku ahay suurat albaqara wa ficlan afura uu imaaday raashin kale nooca waa indhool waxma arko wuu cunay maalintii labaada ku imaaday aali cimruu ku dhaftay haddana suu ugu afuraay maalinba suurad u marti qaadaysay kama yaquuluun laakiin inaan ku kalsoonaa ii sheegay maalinba suu ugu afuraay suurad ancaama imaatay suwaadosiya طبعا الدور جو gurigiisa ma yaqaano indhihu beelay waxba yani qat'at alayhi subul hal kalama ila inuu quraanka ilaahay ugu dhawaado mooyaan suurat an'am akhriyo afurba malaha wala daari wuxuu an'am ma dadaan amartugu waxba lama siin wallahi wadahay suurat al-baqara kulli way soo marti qaadeen hadii soo maaha oo 70 kun malak kula soo degtay هذا إقريسي برينا أذنهم كوعلنا هذا يكون تعالى مرك هذا نصرة أنعام وأخرية قابل الصوق هذا وحو أركا سوقوري قسجوه مركز صورة أنعامي بقرئي كل وإي مرتقاده لكن هذه واحد معنا لما قنات بقى جدك إيسي بنينيس يعني حافظنا أجي سررت فقرت أسرار وحبة للشيء وحوي القرآن كإله سبحانه وتعالى غريب معهم هذو مالت القيامة سورة البقرة وآل عمران كأنها غايتان أو كما قال عليه الصلاة والسلام إيمانا يان أو قدود يان منكي أو أخرين جري غريبكم أهل الدنيا وعن نوع اسكسمية قرآن كواكي لو شهيد كله المرسيي أو هل قبري هو الصعدان لكن أقرأهم من كتاب الله يهر المرسيي هلم إلى القرآن يا أخوة الإيمان والله نريد البركات والخير والشفاء للأولاد وللزوجات أما هل الزوجات لها لكم معددين ما كجروا كل البركات في كتاب الله والله يا أخوة الإيمان الله كريم مركا قرآنك إنه نقصنا إلهي كذا كتاب يسأله إيمانه وإلهي سبحانه وتعالى يعني أسرار تاني إن لا صبحنا ولا سنو معه القرآن كان وين وضعنا قانا تذكر كل القرآن هو أخريا قصة روانا قصة ختم إن شاء الله تعالى أبو معلمين يا الصور عذي جزاك الله خير ننا وحويان القرآن كأدو يقانا معلم كلنا وحويان سبع مجال كرو ومعلم لكن سبع دبايو مكان بيحكي كرو سوالي وأختي وأبي يعني وابل اسكو عيبي سنة يقول القرآن ما كان لكن حاميش لو كان وربحنا قفلوه يعني احترام دون مجرد قرآن بالغو اسكو احترام جل ما وحال صوكر من مركع وقت قاجي جرت الى صوكر من مال وحويان عزومه يكجر معلك هذا النية ماشي وجد دائما انت في ريالين ما حنسمينا مركز دهريه وحال بيانا شيغينا القرآن كده القرآن له حبارسيه iyo macnihi iyo dhaqankii iyo wanaga fogaa
baanan sheegaynaa u dhahay maxaa ugu dhowaan samayn karnaa wuxuu dhahay subaxaan gelaynaa dadku waxaan u sheegaa war macallinkaan macallin weyn waayo kow dheh wuuna xanuunsan yahay aan ku dhahaa go'os ku dad agtayda soo seexo laakiin lugtaada ii soo dhaweeyuu dhahay meel aan kaa taaban karo maxaan samaynaysaa waayo waxaan samaynaa dhaa marka la gefo adaan ku taabanaa lee dheh bas dhig gacanta leetaa saan waxaa weeye dadkaan cashar uga dhigno qur-aankii la wadaa marka aayadda ma la gefay wuu taabanaa laa ilaaha ila allah uu leeyahay la saaxiibkiisa u baaqay dadkii waa argagaxay marka way cabsadeen ninkaan soo xanuunsanaa saan aayaddu waxaa weye u dareemoyaa anakoo fayow hadduu ficnaan lahaa ka wooma ceban lahaa ninkaan xanuunku ku fiicaya hadhow nuuxiis hala siiyo si gooniyaa loo karaameeyey raashinkeeni wuu cunay waxa weeyaan siday sheekadii ku dhammaatay marka qariibku ma aha marka qur-aanka ahalkiisa inuu badbaadiyo nin ahlu qur-aan la saaxiib yahay sababtiisu ku cunay ayi ariiqa u soo maro laakiin ma qadin liannahu saaxibuhu xaamil likitaab illah marka walaaliyaal qisas kaiira qiso kaloo cajiib oo nin macallimiinta qur-aanka aad u yaqaanay waa macallin loo geli waayey oo xifdu qur-aanka loo geli waayey ayaa waxaa la dhahay ninkan waa aan meel u galno imtixaan aan marsiino bas waxay rabaan in hal mar aayad uu qaldo u gefo taxaddi kastaa lagu sameeyey waa loo geli waayo habeenkii meeluu marayo mugdi ah ayaa laba macallimiin u dhunteen midna meeshaan oo gala geedka islaamiga dhinacaanu ka fadhiistay midna dhinacaasu fadhiistay macallinkii markuu soo dhawaaday kanna wuxuu dhahay dad kanna wuxuu dhahay dad macallinkii wuu sheegay markaasuu dha haddaa insaanta bini aadan haddaad tihiin shaytaan haddaad tihiin acuudu billahi min ashaytaan arajiim haddaa insi tihiinna walaa iyo wahdinaa ka raadiya u dhahay kelimadaasay ku dhex jirtaa dad walaa tushqit wahdina xifdiga meesha laga gaaray waktigeennii hore haddaad shaydaan tihiin acuudu billaahi u dhah ilaaha idinka magangala ama bini aadan haddaad tihiin oo ana xujaynaysiin dad waxay ku jirtaa u dhahay walaa iyo wahdina laba dhexdood ka raadiya suurat saad walaa tushqita wahdina ilaa sawaa'i siraat kawar ikhwaan bihadihi almanzila dadkii gaaraan nahay haddaynu tatbiiqino oo waxa weeyaan macnihiina baranno ilaahay ugu dhowaanno ilaahay subxana wa taala wad barakayna marka baaraka allahu fiikum waqtigaa iska yar cidhiidhi ah saas daraaddeed insha allahu tacala waxaan jeclaan lahaa in yani runtii muxaadaro tan ka weyn hadda ka hor ma qabanin marka waxyaaba badan igu soo dhacay laakiin maadaama waqtigu cidhiidhi iska yahay oo yani waqti uuna soo hayo insha allahu tacaala waxaan usoo dardaarmaynaa inaynu qabsano kalaam allah inaynu qur-aanka akhrino في الشهر مرة إنه دمين أقل القليل وإلا في الأسبوع مرة دارت كرامات خاصة إلى عرقتي نظام كنت دميني سنة سهل جدا كل يوم تقرأ 5 أجزاء يوم السبت 5 أجزاء في النساء ويوم الأحد ويوم الثلاثاء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يوم الخميس دميني سهل يوم الجمعة سورة الكهف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إجازية استقامة يوم السبت نبلوها أسهل طريقة هذا نكون دارين أنك جلالنا وخصين جرني لكن أسهل طريقة شيخ جاروش شيخ اللي كسو قورني أيامنا في بلاد الحرمين في جدة مكة المكرمة يعني ساسو نوسي من جد 5 أجزاء كل يوم ويوم الجمعة ما دام جماعة يتهي سورة الكهف هي النبي صلى الله عليه وسلم مشهوره سفع الله دعيسته هذا نسبت له بلابه نصيحتك لنقدنا وحويان علموا أولادكم القرآن الكريم قبل البلوغ انت سن علمها أي سن حلم أي سن كارن أي وحوي سن تبرقلن قرآنك براء المها اسكولة أي وحيابا لغو مشغوليو على قرها يبانده لها لكن تدي لا يسكيره قرآن كهلا عفسيو عنك توجب توسن قرأتو مر قرآن كريم وحويان وحفظيو والله إنها لنعمة عظيمة قرقاس قرياه وكدونانا لا شك في ذلك وهي بركات مذكوسو دقيس
مركز واحد سمينيسا أباها أسبوعي هالختم ليها المها شن اللي حد يكون جو إلهي يكون بركي وذا ختمات إليهين أهلك حاس كذا حافظ قرآن تاي ختمة ذي لا هاي هذه قولي جاجا كل أسبوع شن ختمة إلا طبعا ختمة إكذا عيسو أليست هذه نعمة سو قولي أسبوع قنا يقولي جا وبركة بدل قوليها كوي على مجاله لا شك في ذلك مكور عليه إلهي سبحانه وتعالى يعني أنا وافجي توفيقه أركع إمام الشافعي مرقود لها شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي عنك مركو يرجع يعني وح معصي وهذا وكحجبها إنه قرآن كحفظيه ما جرته مركز أركيسا إنه حفظين كرمانتي لما مقرأ سدح مقرأ وأهل المواجر وواحد دنبيه كليا يعني تنظيم إنه أباهيها إن الله نظميه وقتك معلم في عنه وهلو سيقولون أنا لو رعايه رغبئيه وحويا محبنا لقليه فانك الحقيقة يعني أنا كواجه هو الصومالي المها يعني ما أهن إلا قراعه وحويا لغو عذابه لغو يعني لنده قالمه تاسنا ولقف في عيا أنا كده ناسي ميجرني لكن تاسنا ولقف في عيا إن المها لا تروح أو لا نحرسته أو حويا رغبة لقليه لكن هذا تكون حوبته الله دقالنته وحاركيسا كتاب بدن القرآن وجيحا 10 كم مرة ورقد ويوم مقنتها ويوم محب أمك بقرآنك أبا حفظ ويسي أبا ورقد ويقو أنت ولا ما بكت على ميشا هذه محان حفظها دلان كو حفظها محب أمك وقوية كتاب وجيحا عدة أساليب سمينة سوء كاقبت بعض عليها أما سوء قبت بعض وشكو دعيسو لكن مركا هذا أبا hebel ma aragtay quraanku bartay hebel ma aragtay quraanku bartay oo dadka oo karaamada iyo sharafta iyo wanaaga adoon ku gaaray markaad waraabiso waxay noqonayaan kuwa ku dayanay dadkaas oo jecel iyo maxabo u qaadi doona biidilaahi tabaaraka wa taala insha Allah taala waqtiga iska dhamaaday barakallahu fiikum ilaahi waxaan weydiisanaa subhanahu wa taala in naga aqbalo tawfiiqan nawaafajiyo wixii khata iyo waxa iska ahaadeen min nafsi wa min ash-shaytaan wixii aan saxayna ilaah baa